waa 2022 waxaana la gelayaa rubicii dambe ee sanadka. Haddaba weli ma tahay shaqo la'aan sida ku dhici kartaa? Yes, way dhacday. Weliba adiga oo graduate ah, jaamacad soo dhameeyay, xitaa laga yaabay inaad master tahay, haddana weli waxaad tahay shaqo la'aan. Sababtuna waa weli ma aadan helin shaqadaadii riyada. Ilaa goorma ayay kugu qaadanaysaa in adiga oo dunida saddexaad ku nool, waddan sabool ah ku nool, waddan ay dagaalo iyo colaado daashadeen, aad ku noolaato riyo iyo waxyaabo mal-awaal ah oo aad iska dhaadhicisan. Okay, wiil kasta maanta wuu jecel yahay inuu haysto shaqo fiican oo international ah, uu deganaado apartment qurxoon oo CTV ah, uu ku shaqeeyo mushaar ka badan celcelis ahaan bishii 50,000 ku dhowaad. Laakiin away Soomaalida hore, gaar ahaan Soomaalida koonfureed, waxay dhihi jireen malay banaan ma yimaado, laakiin maqaalina keento. Micnaha meeshaas ku jiro oo aan hadda ka hor hees ku maqlay, laakiin aan jeclahay inaan kula sheergaray waxa uu yahay malayga banaankiis kama yimaado, laakiin maqaalin baa keento. oo micnaheedu yahay kasab camal baa loo baahan yahay shaqo. Okay, maxay tahay marka shaqadan qabanayno? Ogow, haddii shaqadaada riyadu ay ahayd in aad noqoto IT engineer ama pharmacist ama doctor, inta aad ka gaarayso iyada laftirkeeda waxaa la sii qabtaa shaqo yar. Tusaale ahaan, balbeeri waa laga shaqeeyaa, maqaayad waa laga shaqeeyaa, everything, because calal aqal waxay kaa kabaysaa in inta aad waxbarashada iyo noloshaada yarirtaa, halganka noloshaada inta aad ku jirto, in aad bal ka badbaado waxyaabihii kaa dhantaali lahaa waxbarashadaada iyo dadaalkaaga iyo ahdaaftaada nololeed ee berika maalin aad leedahay. Hadhow marka aad soo dhammaysato waxbarashadaada iyo nidaamkaaga iyo howlahaaga, kadib berika maalin waxa aad qabsan kartaa shaqadaadii riyada, waxaadna ku gaari kartaa in aad ka qalin jabiso kuliyadaadii riyada. Laakiin inta aad ka gaarayso ka hor, yes, shaqo kasta qabo, don't be worry, ha xishoonin, waayo waxaad ku nooshahay waddan ku yaala dunida saddexaad, waxaad ku nooshahay Afrika, waxaad nooga sii nooshahay Soomaaliya oo qofku celcelis ahaan oo maalintii ku tashto wax ka yar $2 ilaa $3. You get it? If you don't get it, forget about it. Waad riyoonaysaa saaxib, riyada ka kac. Ma jirto wax la dhaho shaqadeedii riyada, ma jirto wax la dhaho nolosheedii riyada. Riyada soo jeeda ka horeeyo, soo jeedkana rafaada ka horeeyo. Ilaahay diintiisa uu noogu sheego wuxuu dhahay inna macal cusri yusra. Ha isdhiibin.